بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubaraha qodobada aan idin kugu haynana waxa kamid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagoo hareer taagan Netanyahu wacd ku maray in Iran la weerari doono haddii ay ka gudubto qad cas oo uu sheegay in uu dhigay haddaba muxuu yahay qadkaasi cas waaradii faahfaahin doonaa Trump iyo Netanyahu ayaa xilligan leh kulan ku aadan arrimaha Gaza Iran iyo qodobo kale madaxweyne Erdogan oo si adag uga hadlay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland isagoo ku sifeeyay tilaabo waxyeello ku ah xasiloonida Masar oo dalbatay in kulan degdeg ah uu isugu yimaado golaha midowga Afrika isagoo markaasi ka dalbaday in laga hadlo arrimaha aqoonsiga ee Somaliland ee Israa'iil dhinaca kale golaha maanka ee qaramada midoobay ayaa arrimahan xilligan wuxuu ku leeyahay kulan degdeg ah sheekada ugu dambeysay barnaamijka aridin kugu hayaana waxay ku aadan tahay tababaro koox oo lagu xukumay 20 sano inuusan wax ciyaaraha ku lug yeelan maxay tahay sababtu sheeko la yaab la yaaride kaga haynaa abuurtaas dhamaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbinaynaa soo dhawaada markala daawadaya si aad ula socoto ona hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa xaggaas iyo waddanka Mareykanka iyadoo goor dhaweyto oo bilowday kulan gaar ah oo dhex maraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo halkaasi imika booqasho ku jooga waxaana lagu soo waramayaa in intii uusan bilaaban kulankan markii Netanyahu gaariga uu ka soo degay ayaa shir jaraa'id oo kooban waxa wada qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Netanyahu su'aalo ayaana dadka wararka fidiya ay weydiiyeen haddaba aynu eegno Trump iyo waxyaalaha isaga uu ka hadlayo madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu si adag u garaaci doono Iran haddii ay isku daydo in ay dib u dhisto awoodeeda military ama ay dib isku hubayso Trump ayaa hadalkan sheegay isagoo hareer taagan Netanyahu wuxuuna ku andacooday in Mareykanka iyo Israa'iil horay wasidalku u dhigaya guulo waaweyn ay uga gaareen weeraradii sanadkii hore lala beegsaday bartilmaameedyo ku yaala Iran waxaana carabka ku adkeeyay inaan la aqbali doonin in Tehran dib u dhisto awoodeeda ciidan wuxuu yiri waxaan maqlayaa in Iran isku dayayso inay mar kale dhisayso awoodeeda haddii sidaasi ay samayso dhulka ayaan dhigi doonaa waliba si daran ayaan u garaaci doonaa Trump ayaa sheegay in Mareykanku inaba uusan u dulqaadan doonin wax qatar gelinaya sida hadalku yiri amniga gobolka hadalkan ayaa imaanaya xilli warwar cusub laga muujinayo barnaamijyada gantaalada Iran iyo awoodda military ee la soo baxday iyadoo warbaahinta Mareykanku ay sheegayso in Netanyahu uu kordhiyay digninaha ku aadan qatarta si hadalku u dhigay Tehran ka imaanaysa waxaana uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u gudbin doono macluumaadyo dhanka sirdoonka oo la xiriira awoodda Iran dhinaca kale Iran ayaa si adag u beenisay eedeymaha ka imaanaya Mareykanka iyo Israa'iil waxaana ay ku eedeysay labadooduba in ay carqaladeynayaan xasiloonida gobolka isla markaasna ay ku yihiin qatar amniga gobolka isla war arrimahan la xiriira madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale wuxuu sheegay in Netanyahu oo xilligan kulan u socdo ay isla qaada dhigi doonaan arrinta Gaza Iran iyo waliba qodobo kale oo uu sheegin wuxuuna ku adkeeyay carabka baahida loo qabo in hubka laga dhigo xarakada Hamas si loogu gudbo wajiga labaad ee heshiiska xabajoojinta ee Gaza waxaana uu muujiyay rajada uu ka qabo arrintaasi madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Netanyahu uu kala hadli doono arrinta Gaza isagoo tilmaamay in laga wada hadli doono sidii loogu gudbi lahaa wajiga labaad ee heshiiska xabad joojinta iyo qorshaha isagu soo bandhigay wuxuu yiri waxaan rajaynaynaa inaan degdeg ugu gudubno wajiga labaad isagoo xusay in dib u dhis loo samayn doono marka Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan mar la weydiiyay su'aasha ku saabsan haddii Hamas aysan hubka dhigin iyo dib u dhiska ka horeynaya Donald Trump wuxuu sheegay in dib u dhisku degdeg ku bilaaban doono arrintan marka dad badan waxay ku safeynayaan inay ka duwan tahay mowqifka Netanyahu ee ah in lagu xiro dib u dhiska marka Gaza inta Netanyahu inta Hamas
hubka ay dhigayso sida hadalka uu u dhigay haddaba wadahadalkan intuusan u dhicin xamaas war bay soo saartay waxay ogeyd in arrimaha laga hadlayo waxay si buuxda u sheegtay inaysan jirin waxa la yidhahdo hubka dhigis ilaa iyo la helayo shuruudaha qadiyadda dowladda Falastiin lagu dhisayo mowqifkoodana uusan isbedeli doonin waxaana meesha ay ka saareen waxa la yiraahdo hubka dhigis hagaag طبعا kulankan uu socda wixii ku soo kordhana waynu arki doonaa hadii Allah idmo waxaan u gudbaynaa gordhow madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland iyo Masar oo dalbanaysa midowga Afrika inuu isugu yimaado kulan degdeg ah oo arrimahan looga hadlo iyo waliba sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka laakiin intaan u gudbin arrimahaasi aynu ku hakanno qadar xayisiina hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxa kamid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shariicada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo kamid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa cadayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir WhatsApp-ka +252 633 145 153 wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimriyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda Al-Taqwa ayaa ku samaysay qiimo dhimis waxa lagu soo duubayaa muuqaal ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Al-Taqwa Hajj and Umrah nambarka shaashada kaaga muuqda internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada marka la daawadaya waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyahayaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag waxaa haatan aynu u gelaynaa oo inta badan wararka caalamka aad looga hadlayaa go'aankii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu jimcihii uu ku dhawaaqay ee aqoonsiga Somaliland haddaba madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arrintan caawa waxa uu ku soo qaaday intii lagu jiray wadahadal uu la yeeshay amiirka dalkaasi Kuwait intaan u gudbin warkaas oo aan imaan doonaa waxaan eegaynaa haatan dhanka Masar warka soo yeeray dowladda waddanka Masar ayaa dalbatay shir degdeg ah oo ay isugu yimaadaan madaxda qaaradda Afrika gaar ahaan ururka midowga Afrika si loo diido aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland oo ku tilmaamay waa sida hadalku yiri ku tumasho cad oo lagu sameeyay mabaadi'da qawaaniinta caalamiga iyo ahdiga qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa hadalkaasi jeediyay Badr Abdulcaati waxaana uu ku baaqay in la qabto kalfadhi degdeg ah oo ay isugu yimaadaan golaha nabadda iyo amniga Afrika si looga doodo aqoonsiga Israa'iil oo ku tilmaamay markaasi mid qaanuunka qaramada midoobay ka soo horjeeda Abdulcaati ayaa markale ku celiyay diidmada buuxda ee Masar ee ku aadan aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland wuxuuna carabka ku adkeeyay in aqoonsigu uu xadgudub ku yahay mabaadi'da caalamiga sida uu yiri arrintaasi oo ku daray intaasi ay wiiqayso nabadda ammaanka gobolka iyo caalamka gaar ahaan geeska Afrika jimcihii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shaaciyay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland taasi oo dhalisay cambaarayn balaaran iyo falcelin caalamka iyo gobolka Abdulcaati ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in si degdeg ah loo qabto kalfadhiga golaha nabadda iyo amniga Afrika si loo wajaho arrintan halista ku imaan karta iyo sidoo kale in la xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka dowlad ee Soomaaliya waxtahay dhinaca kale madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna wuxuu ka hadlay arrintan warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa Erdogan wuxuu sheegay in aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland uu tusaale u yahay dadaaladeeda Israa'iil ee sii kordhinta carqaladaynta gobolka arrintan ayuu waxa uu ku soo hadal qaaday kadib wadahadal qadka telefoonka oo kula yeeshay dhaxal sugaha Kuwait Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah sida lagu sheegay
bayaan ay soo saartay madaxtooyada Turkiga oo ay baahisay wakaaladda wararka ee Anadolu intii lagu guda jiray wadahadalka madaxweyne Erdogan iyo dhaxal-sugaha Kuwait ayaa waxay ka wada hadleen sidoo kale xiriirka labada dal iyo arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga. Erdogan ayaa sheegay in aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland uu tusaale u yahay dadaalada Tel Aviv ee lagu weeqayo xasiloonida gobolka, isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in la taageero midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Waa tahay haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. Aalaba waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawataan. Waxaan idin haynaa sheeko cajiiba oo ku saabsan tababaro kooxeed oo muddo 20 sano ah laga mamnuucay wax ciyaaraha ku saabsan inuu ku lug yeesho. Haddaba maxaa dhacay? Aynu eegna sheekadan. Guddiga anshaxa kubadda cagta ee waddankaasi Faransiiska ayaa qaaday tilaabo adag kadib markii ay dhacdo markaasi lagu tilmaamay inay tahay mid aad u adag, taasi oo la xiriirta in tababaro lagu magacaabo Lingoyonil laga mamnuucay gebi ahaanba muddo 20 sano ciyaaraha. Tababarahan oo u dhashay waddankaasi Mareykanka ayaa waxaa la sheegay in markaasi dhexdhexaadihii ama garsoorihii ciyaarta markaasi uu feeray, iyadoo lagu soo waramayo intaasi ay ka dhalatay qaladaad ka yimid dhanka ciyaartoydiisa laakiin lagu siiyey kaarka cas. Arrintii ayaa waxaa la sheegayaa hadda in go'aan laga gaaray, waxaana lagu soo waramayaa ninkaasi in muddo 20 sano ah la sheegay in laga mamnuucay ciyaaraha. Waxaana la sheegay tan markii uu garsooraha la murmay ayuu haddana gacan ka hadal ugu bedelayo feer iyo laad iyo dharbaxa ayuu isugu daray, iyadoo lagu soo waramaya markaasi in kooxdiisa iyo qaar ka mid ah maamulka kooxda ay isku dayeen inay xakameeyaan laakiin uu diiday oo markaa uu ka farabaxsaday. Arrintaasi markaa waxay dhalisay in loo fiirshay xagga anshaxa oo leeyahay ninkani maba istaahilaba ciyaaraha inuu ku lug yeesho. Kooxdiisii iyo shaqadiisii waxaa la yidhi 20 sano ma soo geli kartid ciyaaraha. Dadba marka waxay isweydiinayaan ninkan bacdamaa uu ahaa nin koox watay oo ciyaarihii laga mamnuucay talo muxuu qaban doonaa. Marka siyaabo kala duwan baa looga hadlay oo laga falcelinaya dhanka baraha bulshada. Kooxaha marka ay sinacib yihiin kooxda uu wato qaarkood waxay leeyihiinba orod shaqada iska wada baqaarada ka shaqee. Marka waxaa lagu leeyahay arrimahan kale waxay dhalin karaan qofka inuu xakameeyo mararka qaarkood hadduu caroodo. Waa tahay inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii, waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. Waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Somali Meat Company hilib saafi oo sugan oo la hubo waa Somali Meat Company. Somali Meat Company waa shirkadda ugu weyn hilibka Soomaaliya, waxaana ay ku hawlan tahay inay gaarsiiso hilib tayadiisa caafimaad la hubiyey, soona maray baaritaanno caafimaad oo guulaystay. Waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn bariga Afrika, iyadoo leh qaybaha warshadda hilibka geela, warshadda hilibka looda, warshadda hilibka ariga iyo warshadda lafa-bixinta hilibka. Waxaana ka hawlgala shaqaale aqoontooda iyo xirfadooda aad loo diyaariyey, soona maray baaritaanno caafimaad. Somali Meat Company waxay sidoo kale hilibka u dhoofisaa dalalka dibadda sida dalalka Afrika, Khaliijka. dhawaanna waxa ay geyn doontaa dalalka Yurub. waxa ayna haysataa shahaado hilib oo caalami ah sida Halal Certificate iyo ISO Certificate. shirkaddu waxay Muqdisho ku leedahay ilaa iyo 6 goobood si dadka loo gaarsiiyo adeeg hilib oo fresh ah. haddaba booqo xarumaha kala duwan ee Somali Meat Company ama la xiriir ciwaanada shashada kaaga muuqda. ku soo dhawow Safari Remit. warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku warramaya ee kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK, Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo weliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda. isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan, waxaana kaa xigta inaad booqatid www.safariremit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK, mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud, baahi tiraha baahi loo qabay. Safari Remit.